annaga hadda waxaan bilaabnay programkan 2016kii in aan bisha cas adeega ambalaasyada iyo gargaarka degdega inaan la mideeyo in la tayeeyo in volunteer badan la tababaro in community la tababaro so sanad kasta waxaan leenahay qorshahaas oo ah inaan tababarno like 40 community-gaas oo ah kuwa mudnaanta u leh gargaarka degdega community-ga waxaan ku dooranaa community-ga u baahan adeeg gargaarka degdega la tababaro si ay isku caawiyaan ka soo qaad community-gan tuuladan ka soo qaad tuuladan ma laha isbitaal fiican oo river leh waxa ka dhaca dhibaatooyin ka dhaca dagaalaha ka dhaca ama waxyaalaha ka dhaca ama whatever so waxa marka sanad kasta ilaa 40 community aan qorsheynaa si aan dadkaas aan u tababarno waxaana siinaa kits wax la yiraahdo ya kiidan siinaa kiidadka aan ku wareejino si adowti hadii dhaxdooda dib u ku dhaco eegana is caawin karaan inta isbitaalka qofka la geeyo Muqdisho camal waxaa joogtaa 34 ruux oo ambulance responders ah waxay isku jiraan marka qaar dispatcherada waxa weeye waa dadka systemka fadhiyo oo lambarka 446 markii la soo waco qabanayo markii la soo waco way qabanayaan waxay weydiinayaan qofka dib ka caawinayo haday tahay caafimaad wax la xiriiro qofka wuxuu weydiinaya intee ku xanuunaysaa dibkaaga muxuu yahay xagee joogtaa kadib hadalkii uu abuuraya kadib wuxuu dirayaa ambalaaski waxay soo qaadaysaa bukaankii isbitaalka geynaysaa oo referralka ama qof kala soo wici kara oo dib la kulmay gaariga rugmaday dad badan dhaawacay xagee way halkaas teamkii wada diraya dadkii caawinayaan gargaar degdeg u sameynaya isbitaalka ugu dhow oo referralka geenaya ama dib weyn dhacay dagaal baa socda bukaanaan dhaawacay qofka ku soo wacay ama waa la maqlayaa ama waa lagu soo wici karaa ama waa maqli karnaa then dadkii oo diyaarsan oo standby ah oo 24 saac standby ah oo isbedelayaan ayuu direynaa Muqdisho waa meel population-keedu u badan yahay dhibaatooyinkana waa ku badan yihiin waa cid kasta way ogsan tahay Muqdisho waxyaalaha ka dhaco emergency ka accident waa ku badan yahay dagaalada waa ku badan yihiin qaraxyada sidoo kale waxyaalaha kale guryaha duma camal waa ku badan yihiin dabka mar kasta ka waa ku badan tahay Muqdisho marka Muqdisho waxaan u dooranay inaan dadkeeda aan u badino oo standby uga dhigno waxa way dhibaatooyinka ku badan taasoo sababi kara dad badan inay dhaawacmaan ay dhintaan so marka anaga waxa uu talagalnaa dadkeena shacabka ay dhibaataysan miskiinka inay helaan adeeg gargaar oo hufan oo fiican oo bilaash ah oo lacag la'aan ah ka hore xarunta caafimaadka dhibkana haysta badan Muqdisho waxa weeye si sahlan ama isku tagno dib baa dhacaya for example xabada socota waxa rabnaa dad baa dhaawac baan la soo wacay inaan dadka caawino so marka waxa jirta askar badan oo wadooyinka marka la soo dhowaayo so askariga marka u tagtid ala hadashid gaariga uu arkaya bisha cas ku qoran si fiican u calaamaysan yahay teamkeena team leaderka wuxuu sameeynaa uu soo degaya ID card ku dhibanaya uu isku sharxaya marmar askarti wuxuu leeyahay no la waa noqonaysa noqo marmar qaarkood waa ku sii daanayeen laakiin waqti badan ka lumaya soo bukaankii hortaada waxa macquul inuu qaar ka dayacmeen qaar dhinteen maybe qaar in si qaldan loo qaaday bijaaj wax lagu qaaday si qaldan loo qaaday marka access kan ugu dhib badan markuu wax ka dhaco inaan si sahlan meesha ku gaarno problemkaas anaga haysta cabsida ugu weyn waxay tahay markaan team meel u dirno ama gaalkacay ahaadan ama Muqdisho ahaadan ama Kismaayo ahaadan ama meelaha barnaamijyada bisha casran oo aan ku diyaarinay dadka volunteer-ka inay caawiyaan dadka Soomaalida ee shacabka cabsidaan qabno waxa marka meel u dirno si nabad ma ku soo laaban doonaan ilaa aan hubino inay xaruntooda ku soo laabtaan iyagii iyo gabaaridoodii iyo aqibkoodii walwal badan baan qabnaa aad baan walwalnaa taas ay ugu dhib badan shaqada wanaag badan baan ka helnaa dad badan oo caawinay oo dhibaataysnaa oo dhaawac qabay oo teamka u dirnay ay duubeen dhiiga ka istaajiyeen ama jabkii ay ka caawiyeen ay isbitaalka geeyeen oo lacagna aan la weydiinin wax lacag laga qaadanin oo hadhowta soo bogsaday marmar noo imaanaya uu soo booqdaa wali aad baa ay caawiseen aad baa u mahadsantiin bisha sidaatiin shaqo fiican ay qabateen ilaahay ajirkiina axsanaadkan igu daro waxa kale oo jirta
dad kale oo caafimaad ah xanuunsan oo dhiikar qabo stroke ku dhacay ama wadna xanuun ku soo booday ama naqaska aan soo wacayeen lambarkeena gaaban aan soo wacayeen 446 aan soo wacayeen markii waa laga qabanaya waa laga jaab celinaya gaariga loo diraya gaarigii markuu tago qofkii waa la qaadaya waa la sii caawinaya marinka bada loo furaya wuxuu dib u qaba laga caawinaya istaalka la geenaya istaalka markii la geeyo qofkii lacag soo bixinaya wuxuu leeyahay in lacag imisa iga rabtiin $10 ma iga rabtiin $20 ma iga rabtiin maya waxaan leenahay waxaan ka rabno ma laha firiyaan ku soo qaadnay ururka bisha casaan nahay waxa dadku waa dadkeeni national society aan nahay urur qaramada nahay lacag ka marno aad u farxaya dadka hadda qabo problemka ah ciladaha qabo kiliyaha waan lacag haysanin oo u baahan dhaqataan kiliyaha halkii mar oo ambalaasada kale ay u tagaan ay qaadaan $20 la weydinaya $20 laga qaataa waxa la geenaa istaalka haddana qaasti $20 weyn anaga waa qaadnaa lacag laan waa geenina waa la soo dhaqay haddana gurigiisa ku celinina soo dadkaas amal markay na arkaan way noo duceeyaan waliin ilaahi hani daayo ilaahi dhibka aniga ilaahi ani barakayo marka waxyaalaha amal aan farx gelinayo qof dhibaataysan oo Soomaaliya oo shacab ah aan dhaqaale haysanin oo caawiso istalaageesid waxa way waxyaalaha amal anaga na dhiirigeliya markasta na farxad geliya